Asalaamu calaykum walaalay qaaliga aan jeclahay waa idin salaam markasta adduunka joogtaan waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan anigana sidoo kale alxamdulilah haddii caafimaad qabtaan maanta waxaan u wadaa bariis biryani oo aad iyo aad u fudud badan meesha waxaan soo saartay waa hilib wax yar oo cusbo ayaan ku daray iyo biyo intuu noo soo bislaaya ayaan sugaynaa insha allah isla socod wanaagsan sida arkaysaan walaalay qaaliga hilibkii markii uu noo soo shiilmay waxaan kusoo daray oo biyihiisa gursadeen wax yar oo saliid iyo jeex basal ayaan soo jarjaray si dhuudhuuban ayaan usoo jarjaray kadibna basashaas iyo waxaan rabaa hilibka si fiican hadana inay isku dhex galaan ee u shiilmaan oo maasha allah tabaarakallah ay noo soo noqotay intaas basashii iyo hilibkii ayaan si fiican isku dhex gelinaa hilibkana marka waxaan kusoo kariyay wax yar oo cusbo maadaama hilibka uu ahaa hilib lo ayuu ahaa digsiga daboolkiisa ayaan usoo dheereeyay marka meeshan waxaa inoo yaalo 3 xabo toon mashiinka seerka ayaan soo qaatay 3 xabo toon barbarooni jeex ayaan soo jartay barbarooniga cagaaran barbarooni alaala barbarooniga guriga ku yaala ayaa ku isticmaali kartaa insha allah barbarooniga wuxuu u yeelaa falafel ayuu u yeelaa ama yani dhadhan gooni ayuu u yeelaa kabsar caleentii markaa ku darto hal xabo yaanyo burbuur ayaan soo jarjaray iyadana sidoo kaleeto iyo kabsar caleentina waa soo dhaqay kabsar caleen ayaan kusoo darsaday kadibna meeshan jeexi basashii kale kasoo hartay ayaan soo jarjaray iyadana sidoo kaleeto marka intaa ayaan isku soo dari doonaa isla socod wanaagsan mashiinkaas ayaan kusoo shiidaa ugu dambeyn carafteena markii aan isku soo shiishiidanay waa ka sidaas quruxda badan maasha allah tabaarakallah ay noo soo noqotay kadibna meeshii waxyaabaha iiga faafaniina ayaan iska soo masaxayaa digsigina waa kana hilibkii iyo basashii oo maasha allah tabaarakallah isku soo noqdeen isku dhidhiimeen ayaa arkaysaan waa digsiga wuxuu ku fiican yahay cuntada kaama gubayo dabka si kasta u dheeryahay dabkan markaas waxaa fiican medium inay ka dhigato meesha waxaan ku haystaa tiki masala garam masala filfil iyo basbaas isku darsan barbarooniga shiidan xawaaji kaari cusbo xawaaji dhudhuubkeena soomaaliga xawaash allaala xawaashka aad haysato markaas ku darsan insha allah xawaash walba guriga markaas ii yaala ayaan xaaf ka soo qaatay intaa xawaashkii ayaan hilibka hadana kusoo shiilayaa markaas saan iskugu soo shiisho hilibka wuxuu ka galayaa lafta iyo dhuuxa iyo dhigaha ka galayaa kadibna intii aan isku soo shiiday carafta ahayd ayaan hadana dusha kaga soo daray sidaa ayaan kusoo wadi doonaa insha allah marka caraftii aan soo shiiday kadibna waxaan sameeyey weelkii aan ka bixiyey kabsar caleentii iyo wixii dhan ayaan wax yar biyo kusoo labay si yani wax yar dhacan igu yeelto kadib meeshan waxaan kusoo daray qaando yaanyo shiishid yaanyo shiishidka haddaadan jecleen ama aadan rabin oo kale waa iska dhaafi kartaa insha allah laakiin yaanyo shiishidka wuxuu kaa caawinaa kalarka ayuu kaa caawinaa markii intaa aan si fiican isku soo dhexgeliyay daboolka ayaan u dheereeyay meel ayaan ka fariistay kadib howsheeda kaleeta ayaan sii galay meeshan waxaan soo qaatay 4 xabo ukun ayaan biyo lasoo saartay dabka waxaan dusha kaga darayaa waxay tahay wax yar oo cusbo mar allaala markaa karinayso ukunta hadday dusha cusbo yar kaga darto wuxuu u yeelaysaa dhadhan ayuu u yeelaysaa insha allah howshu way badan tahay shaqa sharaf leh shaxaada ceeb ma fahanteen birtawa kaleeta ayaa hadana soo qaatay waxaa waa shaqada bariiska biryaniga waxaa waa weel oo ku dhiibaa laakiin dhib ma lahan macaantiisa iyo dhigtaa laga sheekeynaa ma fahanteen familkan maalinkaas way ku duceynaysaa kadib markaas soo qaadanay wax yar oo saliid ayaan kusoo shubtay xoogaa saliid basal ayaan waxaan hal xabo basal weyn basal weyn inay ku ahaato ama 2 xabo basal ka dhigay insha allah basasha aan markaas haysta ayay ku xiran tahay basashii ayaan saliid kusoo daray ilaa basasha ay ka noqoto casaankaas arkaysaan insha allah shiila oo yani dabkana meel dhexaad ka dhigta marka basashii markii diyaar hadda saas noo soo noqotay kalar qurux badan ay yeelatay saxan ayaan ku ridinayaa waa inoo diyaar basasheeni bariiska ayaan dusha kaga darsan doonaa insha allah yani basash iyadoo diyaarsan way jirtaa soo iibsan kartaa haddii aadan markaas jecleen ukuntii markii diyaar noo soo noqotay waxaan sameeyey meeshii aan ka bixiyey basashii ayaan hadana kusoo shiilay ukunta qobka dhan waa kasoo fiiqay waa ukunta markaan waxay kaa caawinaysaa hadhow markii aad bariiska ku dhex karinayso kaama jajabayso way kuu yara adkaanaysaa saliidda markaa ku yaro shiisho waxayna kalar yaro qurux badan oo burunna way yeelata sida arkaysaan meeshaan waxaan soo saartay hadana digsi kaleeta ayaan soo saartay
biyi markay noo soo karkareen bariiska ayaan ku kari doonaa insha Allah. kadibna waxaan kusoo daray cusbo yar ayaan kusoo darsaday 5 xabo oo heel ayaan kusoo darsaday. heelku wuxuu ka caawinayaa inuu bariiskaaga caraf u yeelo. kadibna waxaan kusoo darsaday 2 xabo oo yacni magaciisa ma garanayo geedkan madow laakiin qorfana maaha waxaa waa laakiin miraha bariiska hindida ay ku karsadaan waa insha Allah dukaamada carafta iyo meelahaas ayaa laga helaa xawaashida meelaha ay yaalaan. kadibna bariiskeenii ayaan soo dhaqanay. kadib bariiska inta kuugu filan ama familka kugu filan qiyaas ahaan adiga ayay kugu xiran tahay insha Allah. kulli ani 2 koob oo bariis ayaan markaan karinayaa. bariiskeenii markii uu noo soo karkaray bariiska asagoo ceerin bariisku ma sokootay oo weli aan si fiican u bislayn ayaan kasoo dejiyay. markii aan baastamir ka soo qaatay saas ayaan u miir maasha Allah tabarakallah. kadibna bayaha si fiican intay nooga miirmayaan waatana suugadiina ayaan u soo noqono isdhex gashay. waxay dhashayaan ku dhahay saliida kor ay soo aado wax yar saliida ah. kadibna maxaa la dhahay sheeg waxaan ku daray dush kaga daray 4 xabo ukunti aan soo karinayay ayaan si fiican hadan isku dhex gelinay waayo waxaan rabaa hadan ukunta si fiican isku yacni inay dhex gasho ukunta. suugadu wuxuu u ekaatay suugo maraq Ethiopian camal oo ekaaday laakiin ma ahan insha Allah wuxuu noqday bariiska codka markaan saarayo iyo bariiska markaan soo cuno laba kala taan fahanteen. bariiska radan yacni markiiba waa soo cuno codka markaan saarayo wala laga sheekay kar dhigta ka hadlaysa fahanteen. marka waxaan sameeyay insha Allah baaquli ayaan soo qabsaday. waxaan ka bixinayaa ukuntii maraqii oo dhan ayaan ka gurayaa waayo waxaan rabaa bariiska inaan 2 dabaq camal ka dhigo. suugada haafkaas yar ayaan kusoo reebtay digsiga. kadibna qaandada waa soo raacsi waayo ma rabin bariiska dhan inuu iga noqdo waxya suugo leh. bariiskeenii saas ayaan dush kaga soo saaray. dabkana geyso number 1 ama number 2 insha Allah dabka iska gaabi markay bariiska san u sameynayso insha Allah. waayo bariiska hadda kadib wuxuu kaaga baahan yahay huuris uu kaaga baahan yahay haddii aad awooddo markaasna ovenka u diro ama foornada geli si bariiska uu kugu soo baxo bariis maasha Allah tabarakallah oo laga sheekeyn karin oo furfur ayuu ku noqonayaa. haddii aadan markaasna ovenka aadan awoodin oo kaleeto aluminiumka dusha ka saar. kadibna waxaa sameysaa daboolkiisa u dhunji ha uu furfurinbo bariis maasha Allah tabarakallah ayuu soo noqonaa. bariiska markii suugada dusha aan ka soo saaray bariiskii cadaay anaa haddana u durmariyay. bariiskii cadaay markaan dusha ka saaro waa ku riixriixaya oo yacni xogaha waayo marabo inay suugo dhan ay ka muuqato kor. si fiican ugu dabool bariiska hoos aad dhigaysa xogaha yare inta badan bariiska kor aad soo marinayso cadaanka ayaa la badiyaa. kadibna sidaa arkaysa waa isla sisimay waxaan diiday inay muuqato suugadii maasha Allah tabarakallah laga sheekeyn karo. wax yar color food ayaan soo qaatay. color alaal kararka ah isticmaal kartaa. ana markaa waxaan isticmaalay orange isticmaalay. bashashii aan soo duwanay oo kaaliska arag ahayd oo buruun khatar quruxda kaaliska arag laga sheekeyn karo basash suuq laga soo gato oo diyaarsan bayda ka fiican fahanteen. marka hore taan waxaan ahaan jiray dadka badan soo iibsado dhibkaas ayaan diidayay. kadib meesha waxaan soo darsaday wax yar oo sabiib ayaan dush kaga soo darsaday. sabiib allaala sabiibka ah haysta markaas waa isticmaali kartaa. daboolka ayaan u soo dheereeyay marka gadaal dambe waxaan ilooy kabsar caleen inaan ku daro. kabsar caleentii ayaan ku daray bariiskeenii kaaliska arag ovenka ayaan geliyay muddo 15 daqiiqo ayaan soo sugay. foornada markaan ka soo bixiyay dee lagama sheekeyn karo gacmaha indhihiina sheekeynayo ka sheekay bal bariiskaas quruxda maasha Allah tabarakallah. ilaahu gacanteena noo barakay inta haysan ilaahu si inta haystana ilaahu siyaadiyo. aan isku soo duceyno walaalahey khaaliga aan jeclahay. waxaan idin leeyahay dee muuqaalka hadduu idin soo gaaro xaqisi insha Allah. muuqaaladan iyo muuqaalo lamid haddii aad jeclaataan ila soo wadaaga insha Allah waa idin la soo wadaaga. waxaa waa channelkiini dee hal kor loo qaado insha Allah. markaan meesha waxaan rabaa inaan wax yar oo soos aan sameeyo. waxaan soo qaatay baaquli yar waxaan rabaa Turkish yogurt inaan ku sameeyo. jab qajaar ayaan soo jarjartay. waxaan soo qaadan doonaa insha Allah Turkish yogurt sa arkaysaan ayaan soo diyaarsaday 3 qaando ayaan ka isticmaali doonaa. kulli family ahaan qiyaastaada inta kugu filan adaa garanayo. Turkish yogurtka wuxuu ku fiican yahay bariiska markii la cunayo soos ahaan in loo sameysto maasha Allah tabarakallah. meesha waxaan ku haystaa filfil iyo liin dhanaan isku darsan. dush ayaan kaga darsanayaa. kadibna waxaan ku darsan doonaa insha Allah wax yar oo cusbo ah oo ma baahnid wax badan inaad sameysato. sooska suuqa laga soo gadaa marka qaarkood guriga inaad ku sameysatid ma fiican tahay haddii aad awooddo markaas.
meesha waxaa ku haysta waxay tahay liin dhanaan iyo xabad toon ah. soo liin dhanaanta ayaan hadda kusoo miiraa dushka kaga soo miiraa. liin dhanaanta waxay ka caawinaysaa xoogaa dhadhan inay u yeesho sooskaaga. sooska markii hadda saas aan kusoo sameynay hal gacan ayaan mobilka ku hayo wax ku duubaya cafwan karaal noqdo insha Allah. sooska saas ayaan isku soo dhexgeliyay maasha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karin. ugu dambeyn waa kana bariiskiina waa soo guran maasha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karin. quruxda iyo macaanka iyo kaalaska aragta iyo carafta ayaa kaaga daranba. inta haysan ilaaha siiyo inta haystan ilaaha u siiyada anagana ilaaha noo daaweeyo. haddii ay tahay markii ugu horreysay channelka soo booqto waxaan kaa codsanaya subscribe-kaaga inaad siiso insha Allah. waana mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaya markasta iyo goor kastaba. haddii aad hore noola joogtana joogistaada quruxda badan iyo waqtigaada quruxda badan aad soo gelisaa waan idinkaga mahadcelinaya dhammaantiin meel kasta adduunka joogtaan. waxaan idinka codsanayaa muuqaaladeeda inay ii share gareysaan laagtana aad isiisaan insha Allah. laagta meel badan ayay gaarsiinaysaa. khayr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo ayaan idin rajeynaa muuqaalka xigo.